السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي wanaagsan idin ahaantiinba meel walbaad naga daawanaysaan kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay xiisada colaadeed ee u dhaxaysa dalalka Iran iyo Israa'iil. Dagaalka Iran iyo Israa'iil ayaa marka ka dambeeya ka sii daraya waji cusub ayuuna galay iyadoo awoodahooda ay labada dhinacba adeegsanayaan. Dhanka Iran haddii aynu eegno waxa ay saaka qaaday mid kamid ah weeraradii ugu cuslaa oo u dhacay bartilmaameed kuwaas oo Iran ay u adeegsatay diyaaradaha iswada ee aan duuliyaha lahayn. Diyaaradahan ayay Israa'iil sheegtay in 5 kamid ah ay ku dhaceen bartilmaameedyadooda iyadoo dhinaca Iran iyadu ayba sheegtayba in la bartilmaameedsaday xarumo muhiim ah oo markaasi sida xarumo military, xarumo sirdoon iyo waliba xarumo kale oo xukuumadda Netanyahu ay lahayd. Waxa ay Iran sheegtay in bartilmaameedyada ugu muhiimsanaa ee loogu talagalay ee gabi ahaanba sidii ay ahaayeen ay u dhaceen dhinaca Israa'iil iyadu waxay sheegtay inay qayb badan oo kamid ah la qabtay diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn laakiin 5 kamid ah ay bartilmaameedyadoodii ay ku dhaceen oo ay nidaam difaaceedka gantaalada ka hortagay Israa'iil ay suurto geli weyday in markaasi ay ka hortagaan. Wakaaladda wararka ee AB oo xiganaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in 6,400 oo qof oo wata dhalashada Mareykanka ama baasaboorka Mareykanka oo degana magaalooyinka Qudus, Tel Aviv iyo waliba Haifa ay dalbanayaan in laga daadgureeyo taasoo micnaheedu ay tahay in Mareykanku uu dad aad u tiro badan u keenay Israa'iil oo ay degan yihiin isla markaana ay ku hawleeyeen sidii loo daadgureyn lahaa. Waxay wararka kale sheegayaan dadka Israa'iil deganba inay boqolkiiba waxa weeye laba wadan ay leeyihiin laba dhalashoon ay wataan sidaas awgeed marka Mareykanku hadda uu bilaabayo daadgureynta labadaasi magaalo dadka degan 6,000 iyo waxa dil daadgureeyana magaalooyinka de wax ku hareeyaba ma jiro. Macnaheedu waxa weeye saddexda magaalo Qudus oo si xoog lagu qabsaday, Tel Aviv iyo magaaladan Haifa dadka deganba inay Mareykan ay yihiin oo baasaboorka Mareykanka ay wataan. iyadana waa arrin kale oo tusaale u ah jabka iyo halaaga ku dhacay Israa'iil ee weerarka Iran ay geysatay. Dhinaca kale haddii aynu eegno xogihii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay xaaladda bariga dhexe marka ka dambaysa way ka sii daraysaa diyaaradaha Israa'iil ayaa iyagana waxa ay geysteen duqeymo ay markaasi duqeeyeen saldhigyo military iyo waliba xarumo sirdoon oo ku yaalay magaalada Shiraz ee koonfurta Iran iyadana duqeymo xoogan bay Israa'iil ay ka geysatay. Si kastaba xaalku marka ka dambeeyo waa ka sii daraya. Waynu eegi doonaa duqeymahaas iyo meelaha ay ku dhaceen iyo khasaaraha dhinacyada soo kala gaaray iyo waliba Iran oo shaacisay in ay gacanta ku dhigtay shabakado kala duwan oo qaarkood wada qaraxyo iyo waliba kuwo sirdoon oo ajaaniba oo gacanta lagu dhigay oo xoog badan oo macluumaad siiyay baa leeyay Israa'iil ayaan iyadana soo qaadan doonaa. Waxa dhinaca kale dul istaagi doona Israa'iil oo dishay ilaa iyo dhowr sargaal sare oo ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran ka tirsan iyo waliba sargaal kale oo isagana ka tirsan saynisyahana aan dhahnay khuburada sameynaysa lugneerka oo isagana la dilay oo Iraniyana iyadana waa soo qaadan doona. xaaladdu marka ka dambaysa faraha ay ka sii baxaysa muuqaalka like saara fogeeyay kuna meel dheer ka tuura insha Allah ta'ala. aynu ku bilownay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ayaa wacdaro la yaab la ka dhigay gudaha Israa'iil waxayna noqotay mid kamid ah weerarada ugu hadal haynta badan tan iyo inta uu dagaalkan Israa'iil iyo Iran uu soo bilowday. diyaaradahan Iran ay saaka weerarka u adeegsatay ayaa waxa ay bartilmaameedsadeen xarumo muhiim oo ku yaala Israa'iil gudaheeda kuwaas oo iskugu jira xarumo military, xarumo sirdoon, xarumo dawladda ay leedahay iyo waliba xarumo kale oo muhiim ah ayay diyaaradahaasi bartilmaameedsadeen baa leeyay. waxaa dhinaca kale to iyadana la xaqiijiyay in gabi ahaanba la burburiyay dhismo ay lahayd wasaaradda arrimaha gudaha ee Israa'iil oo ku yaalay magaalada Haifa ayaa gabi ahaanba iyadana dhulka la dhigay. wasaaraddaas dhulka la tajiyay dhulka ayaa la dhigay iyadana weeraradii ugu dambeeyay xalay ay fulisay ilaa shalay galabnimo aduu xiliyada uu la fuliyay Israa'iil Iran ay fulisay ayaa lagu burburiyay. marka Iran waxa ay gabi ahaanba awood buuxda u yeelatay in bartilmaameedyada ay doonayso inay si toos ah u burburiso mid ay gantaal ku dhufato iyo mid ay diyaarado drone ay u adeegsataba.
walow dhanka xagga diyaaradaha markii la yidhaahdo oo diyaaradaha qumaatiga u kaca sida hadda israa'iil diyaaradaha ay adeegsanayso kale marar badanna waa sheegnaye aysan iiraan haysanin haddanana oo hawada kore maraykan iyo dowlado waaweyn ay ka difaacayaan haddana waxay ku guuldaraysteen xulafada israa'iil iyo weliba israa'iilsha naftirkeedaba in ay ka hortagaan weerarada gantaalada iyo weliba diyaaradaha droonka ee israa'iil ee iiraan ay adeegsanayso israa'iil war ka soo baxay ayaa waxay sheegeen in 5 ka mid a diyaaradihii ay iiraan kusoo weerartay israa'iil ay ku guuldaraysteen inay ka hortagaan oo ay ku dhaceen baa layidhi gudaha magaalooyinka baa layidhi markaasi bartilmaameedka u ahaa ee ay iiraan ugu talagashay inay bartilmaameysato magaalooyin badan oo duqeymaha ugu badan ay ku dhaceen baa jira dhowr magaalo baa ugu badan magaalada hadda la yidhaahdo xayfa tel aviv magaalooyinkaas batyam oo maalinta hore iyadana aad loogu habsaday waa meelaha musiibooyinka ugu waaweyn israa'iil ay kala kulantay ee duqeymuhu ay ku dhaceen weeye haddii aynu eegno dhinaca kale wakaaladda wararka ee a b oo soo xiganaysa baa layidhi wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in 6,500 oo qof ka badan ay haystaan baa layidhi baasaboorka maraykanka dadkaas oo ku nool baa layidhi magaalada qudus xayfa iyo tel aviv saddexdaa magaalo ayay dadkaa ku nool yihiin baa layidhi 6,500 dad ka badan baa jooga oo maraykana xaggana israa'iil sharcigeeda haysta xaggana maraykanka sharcigiisa haysta dadka iyaga marka maraykanka meesha ku ilaalinaya oo geeyey waa muwaadiniin maraykana weeye ma aha kuwo intay israa'iil ka tageen soo waxay waa dadka la dejiyey dhulka la doonayay in lagu xoojiye ee la soo dejiyey weeye dadka iyaga marka waxaa bilowday baa layidhi oo waxay dalbanayaan baa layidhi in laga saaro aagaas oo lagu celiyo baa layidhi maraykanka lagu celiyo maalin walba baa layidhi waxaa carara 500 ilaa 300 oo qoys ayaa cararta oo waxa weeye isku daysa inay baxsato doomo iyo waxyaabo kale isticmaalaysa laakiin dee waxa weeye ha isticmaashee oo waxa weeye haba isticmaashee ma baxsa waxa weeye ma kama baxsa macnaha kuma filla oo weeraradii baa isdaba jooga New York Times ayaa waxa uu warinaya isagana in wasaaradda arrimaha gudaha ee Israa'iil dhismihii wasaaradda arrimaha gudaha ee Israa'iil magaalada Haifa gabi ahaanba la burburiyey oo waxa weeye dhulka la dhigay oo gantaaladii Iiraan ay ku dhaceen taasoo ka dhigan in Iiraan gantaaladeeda iyo weliba diyaaradaheeda droonta ay ugu talagashay weerarada in aysan celin karin nidaam difaaceedka Israa'iil oo ay ka gudubeen muuqaalo laga soo duubay goobaha ay ku dhaceen ayaa muujinaya burbur ballaaran oo soo gaadhay goobaha gantaalada iyo weliba diyaaraduhu ay ku dhaceen Israa'iil dhinaceeda waxa ay mar waliba leedahay guryaha dabaqyada intaan ee burburaya iyo gantaalada dhulka hoostiisa galaya wax dhaawac baa jira laakiin dhimasho ma jirto dhaawac baa jira laakiin dhimasho ma jirto waxba kuma dhimanin warkeedu waa waxba kuma dhimanin baa yaa isku soo hadhay si kastaba weeraradu way socdaan way isdaba joog labada dhinacba naar baa la iswaraabinaya lama dhihi karo weerar waxan diyaaradaha droonka intii lagu soo rakibo madaxyo qaraxyo ah loo soo dhiibo ba hal meel dimdim lagu sino gurigii dhanaa iyo aagaas dhan baa waxa weeye noqonaya budo muuqaalada laga soo duubay ee waxa weeye meelihii ay duqaysay Iiraan burbur baaxad laba ka muuqda oo Iiraan waliba magaalooyinka Tel Aviv Haifa waa labada magaalo ee ugu daran weeye ee ay inta badan Israa'iil Iiraan ay ku noqotay weeye walow gudaha Tel Aviv markii la yiraahdo magaalada dhexdeeda inta badan gantaalada ku dhici lahaa laga hortago oo aad hawada waxa weeye Mareykanka iyo xulfadooda G7 ay iskugu geeyeen awood waxay hayeen nidaam difaaceed haddana agagaarka magaalada iyo gooyaheedaba burbur ballaaran baa ka muuqda oo way ku guuldareysteen inay markaas ay ka hortagaan dhinaca Israa'iil haddii aynu eegno naftirkeeda duqeymo xoogan bay ka geysatay oo weliba burbur dhaliyay bay ka geysatay magaalooyin badan oo ay ka mid tahay magaalada waxa weeye la yiraahdo Shiraz la yiraahdo ayaa ka mid ah waa koonfurta Iiraan burbur ballaaran baa laga geystay waxa Israa'iil diyaaradaheedu ay beegsadeen xarumo military oo halkaas ku yaalay ayay beegsadeen sidoo kale Israa'iil waxay dishay Saciid nin la yiraahdo oo taliye ah oo ka tirsan ciidamada kacaanka ka tirsan ayay dishay oo xalayto ay diyaarad drone u adeegsatay
waxaa sidoo kaleeto ay dishay saynisyahan isagana iiraan oo kamid ahaa khuburada sameynaysa lugneerka ayaa iyadana la dilay, taasoo ka dhigan in 13 kamid a saynisyahanada iiraan ay dishay waxa weeye israa'iil tan iyo inta hadda weerarkan uu soo bilowday. si kastaba israa'iil weli beegs bay wadaa, weli hawlaheeda ay ku tula jirtaa, waxa weeye laynta, iyadoo weliba aad loogu cabsi qabo in hogaamiyaha sare iiraan la dilo cali khamaani, oo cali khamaani naftigiisa warar ka soo baxay ay sheegayaanba inuu magacowday ilaa 3 sheekh oo isxiga, oo isaga midka ku sixigi lahaa haddii la dilo, midka kale ku sixigi lahaa iyo midka kale ku sixigi lahaa, oo mar horeba uu ka diyaar garoobayba maadaama ay qorsheynayaan inay dilaan rag mas-uuliyiin oo fara badanna israa'iil ay dishay. xaaladdu marba marka ka dambaysa waa ay kasii daraysaa. waxaa muuqaaladeena xiga idinku soo gudbin doonaa, muuqaalku ugu dheeraanayaae wasiirada arrimaha dibadda ee islaamka, dalalka islaamka ee ku shiraya dalka turkiga, Rajab Tayyip Erdogan naftigiisoo war culus soo saaray, meesha la yidhaahdo wasiirka arrimaha dibadda iiraan Abbas Kharaaji oo isaga naftigiisa shir la qaatay waxa weeye wasiirada arrimaha dibadda ee reer Yurub Geneva ay ku kulmeen, waxyaabaha ka soo baxay xogo badan oo kale ayaa soo socda. Rajab Tayyip Erdogan aad buu xanaaqay oo waxa weeye cadho badan ayuu muujiyay hadaladiisa iyo waxyaabaha markaasi uu ku dhawaaqay iyo go'aanada bariga dhexe iyo Israa'iil mowqifka uga dejisan Turkiga maadaama dal aad u weyn u yahay, macnaha waxa weeye awood badan u yahay. muuqaalkeena xiga ayaan idinkula wadaagi doonaa si uusan muuqaalku u dheeraanin. xogo badan oo soo ururiyay oo kaleeta idiin soo socda, nagu xidhnaada oo nala socda insha Allah taala.